قضية بدل waxaan kale waxa weeye wafooga bagaanda oo suuqa laga sameeyay oo dad khaas sameeyeen yaa sameeyay dad khaas waxa sameeyay odayga Suldaanka beesha oo la yiraahdo Boqor Maxamed Jaamac haye muxuu ka damacsan yahay wuxuu ka damacsan yahay waa soo wacay wuxuu igu yiri lacag ka rabaa ani waxaan ku dhigay konton qof ay soo doorato beeshayada dabeetana wuxuu igu yiri waa ugu sameeyay inaan ku talaaseeyo inaan dacayad suuqa ku mariyo ka lacag siin qiimahooda aad u badan yahay dabeetana waxaan u diray odayaal reeraha iyaga aqalkiisa reerahan u diray waxaan ku yiri waxa soo wado wax ka uu rabo oo dhan waa siinaya laakiin odayga reerka weeye waa inuu basarxumada joojiyo waa inuu khaladaadku ku dhaqmiyo joojiyo khalad maanta aniga kaliya ku dhaqmayna ma waa khalad ilaa 12 ku soo dhaqmayay oo xildhibaanadii iga horeeyay oo saa ugu soo dhaqmi jiray marka waa wax dhaqankiisa caado uu yeeshay isaga inuu ku ijaafeenayo sida aad noo sheegtay waa gartay sida hadalka u dhageyso si ay dhiid in laga dacweeyo oo meesha dacwo ka socotay oo ragii inay ku qabayeen sheegayay meesha inay ku kulmeen la sheegay oo dacwo halka ka furanta marka sidoo ku abaabulay saddex qofood oo meesha tagtay waxa soo dhantaga sameeyay si ay ana ka soo dacweeyay xirlaarinta ana ka dacweeyay imika dacweeyay waa ii socota ana dacweynaya oo adiga lagu ma dacweyn miya isagu uu soo dacweeyay ma tii ana dacweeyay waa gartay marka si ay dhiida dacwada intee maraysa hadda markii aad furtay feelka si ay dhiida dacwada ana kama furana waxaan ka furtay xirlaarinta waxaad sheegtay in uu lacag kale rabo shirka jiraadii ay qabatay ma hore lacag ka qaatay waa iga dalbaday imisa waxa iga dalbaday 200 aan la iga keenin buu yirnaasta waa fadeexadinaya kursiga looga soo celiyaa fadeexadu sameeynaya dabeetana waxa jooji baa lagu yiri odayaal reerka u tagay waxa wuxuu wariga ku dhaqanigay ma dhaqmin laakiin afar xildhibaan iga horeeyay kula soo dhaqmo ragga marka uu leeyahay way ku qabaan ma ayagu ma soo banaan bixeen oo maxkamadda imaadeen maya isaga wala ana qaba rag kale ma jiraan waa isaga waxa la ana qaba aduu hadda maxaa la tahay ani marwo guriga baanahay oo caruur leh isagana wuxuu sheegay inuu ku qabo isaga sheegay inuu qaba haye ma dokumenti cadeemo iyo meel kugu mehersaday ma soo bandhigay maya meel lama imanaya meel lama soo istaagayo markuu wax kale uu qaban kara waayo waa markuu website-da barta bulshada ku kulanta oo uu dhigay la qaafeenta yar laakiin qof ceebaan lahayn qofku ma qabato waxna waa wuxuu ku dhaqmi jiray ilaa 12 ku soo dhaqmayay website-da qaar laakiin waxay sheegeen dad magacyadooda ay xuseen ay leeyihiin waxay imaadeen CID-da iyo xilaalinta ayagoo sheeganaya ay laftooda inay ku qabaan oo aan asaga ahayn oo asaga ka madax banaan marka ma jirto miya taa waa website-da uu lacag siiyo amal waa website-da u gaar ah oo dadku ku fadeexadaysto $200 sheegtay inuu ku weydiistay ma cadeena haysta inuu ku weydiistay lacagtaas cadeyn baan haystaa ay maxaa cadeynaya marxaatika maantana shirki jiraadana hadla waa kaga hadlay iyagu xataa aqladeedu way ka hanteen aqal shifiyadeedu oo dhahay maxay oo uu xataa ku yaan u diray oo ku wari lacagta si weydiistay uu lacagta hadaan la siin fadeexad baan u galnay website-da iyo meel kale wax ka maqlaysa ma jirto inta barta bulshada ku kala duwan wax dhigi kara waxaana wax maanta kaliya uu sameeyay ma ilaa wax wariga ku dhaqmi jiray xiriir idinka dhaxeeyay idinka marka laga tago inuu odaygaaga yahay xiriir kale ma jiro idinka dhaxeeyay maya wax xiriir idinka ma dhaxeen miya xiriir naga ma dhaxo waxa odayga Suldaankii beesha waaye anaga xiriir maxay naga dhaxayn karaba soo isagan marka inta waa qabaa marba haduu odaygaagii magaaladu jooga hadda Muqdisho muqdisho jooga muxuu ku yiri qadiyadan iskoolkiisa ku jira isaga laftiisa intuu ka soo galay waxaan ku yiri ma maxkamadda timid isaga wacday macnaha soo ku soo galay isaga laftiisa ma maqlaysaa si fiican waxaan ku yiri odaygaaga soo ku soo galay qadiyada kiiska hadda socdo wuxuu ku soo galay nin naagtiisa leeyahay ana qaba waa soo qasab ku soo galay wuxuu soo galay waa gartay mise caruur leedahay xilbaane 9 baa leedahay 9 caruur oo kulligood wada jooga wadanka